السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وطعنين يا ليدو أروك إسرائيل قيبتي سي شن طبانات وحنا مخالك كل فجورينا تاريخ نولتي مدن محمد عثمان باربي هي حوينتي سدحي طبانات إداريين أروك إسرائيل كل شيء مدن محمد عثمان بارديري سنة يكون سال بقولي طبعاً كي وحنا كبر باري جوري والد كيسة يران كيسة أيوة نبرتي القرآن كإيمة بعيد الإسلام كسيد أي عادة واحد وضم المسلمين تاع كدي بوحو قالي إسكول كوسة إيطاليانية بارديري إسحاق يونين لقوم مجعبو أحمد محمد عيسى أيها وحي أساسين شركة balse nasiib daro ma aysan ku guuleysan shirkadoodii kadib markii ay weeyeen waxyaabihii ay u baahnayeen iyo cadaadiska gumaysiga yaaniga uga yimid kadib mudane maxamed cusmaan wuxuu shaqo ka helay dawladda Talyaaniga taas oo muddo la joogay ilaa ay maqaadiirtu la kulmisay saaxiibadiisa 12 ahaa wuxuuna yaqaanay luqadda Ingiriiska wuxuuna ahaa xubintii 13aad ee ka mid ka ahayd xubnihii 13 ahaa ee aasaasay xisbiga midnimada dhalinyarada Soomaaliyeed wuxuuna ahaa ninka ugu da'da weyn wuxuuna muujiyay markiiba firfircoonidiisa isagoo gaaray dhanka wadaninimada xad aan la qiyaasi karin wuxuu dadaal aad u weyn ku bixiyay sidii loo gaari lahaa xornimo dalkana gumaysta looga xoreyn lahaa wuxuuna ku sifeysnaa sifooyinka dadka xorta ah wuxuu ku dhex lahaa xisbiga xushmad iyo ixtiraam wanaagiisa dartiisa wuxuuna la wadaagay walaalihiisa jihaadkii iyo halgankii ay wadeen kadib waxaa loo wareejiyay diinsoor kadib markii lagu tuhmay inuu ku lug lahaa dhaqdhaqaaqii xornimo doonka ah ee Muqdisho ka socday muddo gaaban ayuu joogay diinsoor kadib waxaa loo bedelay Baydhabo sanadii 1930 waxaa la joojiyay shaqadii tuun aan la qiijin maalmo kadib wuxuu iska casilay shaqadii wuxuuna la shaqayn jiray shirkad Talyaani ee ganacsi wuxuu la shaqaynayay ilaa uu dhacay dagaalkii labaad ee dunida taas oo Talyaani ku jibiyeen isbahaysi ka soo horjeeday xilligaasi ayuu ka tagay shaqadii asagoo u aaday Baardheere wuxuuna noqday ganacsade dawladii Soomaaliya ayaa u magacaabay gudoomiye ku-xigeenka degmada Dawlow. Assalaamu calaykum.